sida ay Kalsan TV u xaqiijiyeen dadka ku nool deegaanka Qoryaale ee hoostaga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxaa halka lagu arkay dhacdo cusub oo dadkii arkay ay aad uga argagaxeen. dhacdadan ayaa ahayd mid dadka deegaanka qaarkood ay arkeen wax ka kooban guryo dabaqyo ah, masaajidyo iyo waliba geedo una gurguuraya dhinacyada koonfurta iyo waqooyiga iskuna xira cirka iyo dhulka. dhacdadan oo ah mid cusub aadna looga hadalhayo guud ahaan gobolka Hiiraan ayaan la ogeyn in ay tahay waxa dadka ay arkeen mucjisada rabbaani ah ama ay tahay inay arkeen dadkaasi dayax gacmeed. dadka ayaa xusay inay isku dayeen in ay kor tagaan wixii ay arkeen ee mucjisada ay ku tilmaameen, balse markii dambe ay u suuragali waysay in ay kor tagaan ayna u dhamaadeen wixii ay arkayeen dhanka badda. si aan wax badan dhacdada uga ogaan waxay Kalsan TV ay la hadashay Aamin Cali Makaraan oo ka mid ah dadka jooga deegaanka Qoryaale indhihiisana ku arkay mucjisadaasi. aniga horta Aamin Cali Makaraan la yiraahdo ma fahamtay. waa gartay. tuulada Qoryaale degmada Jalalaqsi 20 kiiloomitir u jirta aan joogaa. haye niyo roobka 12 saac iyo barayeen xilligu dacay roobki markuu bayooday waxaa kulay dadka banaanka jooga waxa yiri magaalada kor guuraysa war magaalada kor guura war magaalada kor guura wixii dadkii banaanka joogay markuu ceelkii dhowrkiiyo magaaladii tuuladii la faaruujiyay wixii loo guday baa waa wada fiirinay guryo iyo waxa noo soo baxay iyo maraayado iyo dabaqyo dhisan geedo ku dhex yaalaan oo camiran cambaha iyo baararka iyo adigu waxyaabo badan ku yaalaan. waa gartay. wixii ummadii dad quraanka u ka dhawaaday oo salaada u dadkay dadna wixii wuxuu yiri waxaana la aadinaa marka soo arkayna. haye la yiri wixii mugdi lagu dhawiyo marka meeshii lagu dhawiyaana wixii dhinaca oo koonfurta waqooyi iyo koonfur kala socday waqooyi waa ka socday koonfurna waa u socday. waa gartay. dhinaca koonfureed badda ka galaya markaas shoocaca ku baxsaday waxa weli la arka ma ahayn waa laakiin maqaadir Ilaahay oo cirka iyo dhulka aasatay ummadda Qoryaale joogto dhana kurteeda aragtay waxaas marka xaqiiqo waa amuur Ilaahay wadana waa cid bini aadan oo hadda maaragtay aragtadaas iyo anaka tusaalahaas bisaaba la ekay Ilaahay haddana markaa u dhawaana haddana Ilaahay asaaba wixii maaragtay oo sababa. waa gartay. dabcan adigu waxaad tahay nin oday ah xogtiisana lagu kalsoonaan karo, marka ma aragtay adigu waxa oo indhahaada ma saartay? waxa ugu dambeeyay masaajidku waxa waaye waa ugu dambeeyay dad badan oo maaragtay culimo iyo caamaha wiilgayna u jarfanay wuxuu cirkiga dhulkana waa saasaan dabaqyo camal oo dhisan waaye dhinaca koonfurta baday ka haastaan dhinaca kalena waa ka socdaan waqooyiga. waa gartay. marka maxaad aragtay adigu? ma masjid oo keliya ayaad aragtay mise wax badan oo guuraya aragtay adigu? waa guur wax badan oo guuraha arkay aniga indhaha saaray oo guuraha indhaha saaray xaqiiqo waa taas. marka dhinaca waqooyiga wuxuu ka soo guureen banaanka mugga isku tagnaan dadna quraanka rabbiga uu ka hadlawaaday dadna meeshii uu duday dadaaba haatee maaragtay aaba carrey oo xalay duurka ku carrey markuu haatee waxaad arkay weli wax la arkaa haatee maaha waxaas. haye markii aad tagteen oo aad ku dhawaateen wixii ma soo wada aragteen? nabaqsi wuxuu sideedaba waxa waaye cirka marka fiirido wuxuu waa sharaxan yihiin in ku dhow yihiin waa qotaa marka sii socodkiina wixii waa kaa sii socdaan dadka ugu horreeyay markii naga dhaqaaqeen wixii anuguna ka daba dudayno oo maaragtay waxaa soo wada arka waana degan yahay aan islaynaa dhinaca koonfuro oo badda uga furneeday wixii miraqkiisa. waxa ma dhulka ayay inay soo degeen oo aad aragteen mase cirka oo keliya ayaad ku aragteen idinku? مثلا هذا إشهاد المبتدع أركي يدوكو مركي إشهاد أركب ماشي هو دير أركي يدوكو يسكنوا يماركنوا waxaan dhulkan waa cirkan waa haastaan saadaal saas oo cabbiran waa marka waxa weeye waa guryo ariish kuma jiro dhagaxyo waa guri dhagaxa oo dabaqyo ah oo dhisan waa nuuc walba leh. marka
leerar miyay wateen oo ma ifaayeen mase maya leerar ma wadan laakiin guryaha dhowr rinjiya kala leeyihiin marka masaajidka ugu dambeeyey iyo buuro dheerdheera ugu dambeeyey waxa waa buuraha geeday leeyihiin masaajidku waxa waa geedaha ku dhex yaala albaabadiisu waa u furan yihiin dhinacana baday ka aadaniya marka saadaashaas wax ilaahay qadar ilaahay wax ka socdo waa maya salaada maaha shaxalay maqribka horteedii waa shal galab xilliga roobku dacay waa roobkaasu dabaylo badan oo watay geedu waa isku dhacayeen geedku waa lulunay hataa geedka mugaa maaragtay oo xagga kaa jooga xaggaa ugu soo dhacaa marka sidaasaa horta markii hore uu roobka ku bilaabo maxaa marka adinka istiraheen wax noocaas oo kale ana horay muu arki jirteen maya orax madoobaata waa aragnay adiga bil madoobaata waa aragnay laakiin guryo camiran oo guur ah oo maaragtay geedo ku yaalaan oo masaajida ku yaalaan oo dabaqayaa anaka weli ma arag xubno ka mid ah maamulka degmada Jalalaqsi oo iyana dhankooda aan la hadalnay ayaa warkan Kalsan TV u xaqiijiyay waxayna sheegeen in waxa dadka deegaanka ay arkeen lagu tilmaami karo mucjiso. Maxamed Ibrahim Siyaad, Kalsan TV, Beledweyne.